kulan wacan daawada meel walba aad joogto iyo si walbaad noo daawanaysa waxaad ku soo dhawaataa janaal kale waa filmis oo hadoona kale kuusoo gudbiya muuqaaladii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka, Hollywoodka iyo Tollywoodkaba. hadda warbixintan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa taariikhda kooban ee jilaaga reer Bollywood ee Ranveer Singh. waa jilaa gulu saaxiib ah, waxaan idinkaga haynaa taariikhdiisa oo aan qeybaha ugu muhiimsan idin soo koobnay. markuu jiray da'da 15 ayuu bilaabay inuu ku riyoodo inuu noqdo jilaa. wuxuu ka shaqayn jiray photocopy ilaa markii dambe uu aaday dalka Mareykanka si uu u soo barto xayeysiiska. wuxuu bilaabay inuu qaato koorsada barashada jiliinka sanadkii labaad ee college-ka. macalinkiisa ayaa weydiiyey inuu bandhig ka sameeyo dadka hortooda, qof walbana ayaa ka helay xirfadda jiliinkiisa. wuxuu xaqiijiyey inuu noqdo jilaa wuxuuna dib ugu soo laabtay dalka Hindiya. waxayna u dhigneed mid ay ku adkeed aan suurtagal ahayn inuu ku biiro Bollywoodka. wuxuuna la kulmay diidmo iyo in la duuleysto. wuxuu isku dayay inuu ku biiro kooxaha tiyaatarada, ma jirin koox tiyaatarada ka mid ah oo aqbasha jilaagan. wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo goobaha duubista filmada. wuxuu nambarada ka xadi jiray telefoonada dadka ay u dhow yihiin filimsameeyaasha si uu filimsameeyaashaas ula xiriiro. wuxuuna wareegay xafiis ka xafiis si uu shaqada u helo. waxay ahayd midda ugu adkeed uu wajahay noloshiisa. waalidiintiis ayaa garab istaagay gar iyo gardaraba. hal maalin ayaa waxaa warqad ay ka soo gaartay shirkadda ugu weyn ee Hindiya ee Yash Raj si tijaabo loogu qaado. waxaa la xaqiijiyay inuu hogaamiye loogu dhigayo filimka Bandi Baja Barat. filimkiisa koowaad wuxuu noqday blockbuster weyn. hal habeen ayuuna xidig weyn ku noqday. wuxuu sameeyey filmada guuleysta sida Ram Leela, Bajro Mastani, Badmafat, Simba iyo Gully Boy. wuxuu kasoo muuqday majalada Forbes ee la xiriirta dadka caanka ah ee dalka Hindiya laga soo bilaabo 2012. wuxuu guursaday jaceylkiisa waqtiga dheer ee Deepika Padukone iyagoo sameystay aroos weyn, waxayna noqdeen lamaane aada loogu wada jeclaystay, waxaana loogu yeeraa Deep Fear. taageerayaasha ayaa waxay si aad ah u sugi laayihiin filimkiisa soo socda ee 83. waa filim loogu hadlayo nolosha ciyaaryahanka reer Hindi ee dheela cricketka ee Kapil Dev. inta ayaan kusoo xirinaa taariikhda kooban ee Ranveer Singh. haddaad ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada. haddii markaa tahay janaalkana subscribe inoo saar.